السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا مهتسنتين مانتا وسبتي وأنا شني لباتنك بيش أفراد أبريل سنة كلبضة كون إيو اللحية لباتنك وقال كانوا حربا إن نذكله وذاقو وفتجي مدحوين ترام ودري مقالة إسلام آباد ودنك باكستان ودب أصول لابتي يجو أن لكل من وفتجي إيرانيين مركي هربا وجد كي أتجين مقالة إسلام آباد ما إيسان أهين إن وذا هذا إليه شان مريكان laakiin waxay ahayd inay la kulmaan dawladda Pakistan oo kaliya mas'uuliyiin ka tirsan oo booqasho ay dhowr wadan ku marayaan waftiga wasiirka arrimaha dibadda Iran hogaaminaya ayay qayb ka ahaayeen haddaba Trump saaka muxuu bartiisa True Social-ka uu ku soo qoray oo leeyahay waan kansalay waftigii aan u diray magaalada Islamabad Iraniyiintuna markay diyaar noqdaan hana soo wacaan laakiin waxa ka dhacday yaa idin ballamiyay markii hore oo horta yaa idin wacay ayaa ka dhacday sidoo kale waxaan idin la wadaagayaa Iran halka ay ka taagan tahay horta wada hadal mar kale ay la yeelato Mareykanka maxay tahay shuruudda ugu adag oo ay ku xirayaan waxa sidoo kale jirta in Iraniyiintu ay yiraahdeen ba wada hadallo qorsheysan oo in wafti ka socda Mareykanka inaan la yeelano maba aysan ahayn ujeedka aan u tagnay Islamabad iyo sidoo kalena ciidamada Iran oo u digaya ciidamada Mareykanka ee go'doominta ku haya marinka Hormuz waxa sidoo kale ay xaqiijisay Iran halka ay ka taagan tahay xabajoojinta Mareykanka ay kula jiraan arrimahaas oo idil ayaan idin la wadaagayaa maxay tahay sababta shalay waftiga labada xubnood oo Trump uu diray madaxweyne ku xigeenka uga reebay arrintaas khilaaf miya jira labadooda u dhaxeeya arrimahaasina sidoo kale waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay shalay wafti ka socda Iran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Abbas Araghchi in waftigaasi wasiirka arrimaha dibadda uu yiri waxaan tagaynaa dhowr wadan oo ay ka mid yihiin Pakistan, Oman iyo waliba Ruushka waxaana u tagaynaa in wadamadaasi aan iskaashigeena kala wada hadalno isla markaana wadamada dariska sida Oman iyo sidoo kale Pakistan aan arrimaha inaga noo dhaxeeya aan ka wada hadalno laakiin Mareykanka iyaga oo aan la wacin ayaa madaxweyne Trump shalay afayeenka aqalka cad Caroline Leavitt waxay tiri madaxweyne Trump waxa uu diray Steve Witkoff oo ergeyga bariga dhexe u qaabilsan madaxweyne Trump iyo wiilka sodoga uu yahay Jared Kushner isla markaana haddii loo baahdo madaxweyne ku xigeenka Hagan ayuu ku jiraayo waa loo diri karaa Islamabad xitaa waxa la arkayay madaxweyne ku xigeenka JD Vance oo telefonka Trump kula hadlaya isla markaana DT ay ugu qoran tahay oo Donald Trump laga soo gaabiyay maalmahan waxa soo baxay in khilaaf uu jiro la xiriira Trump iyo madaxweyne ku xigeenka wada hadallada Iran ay la leeyihiin la xiriira madaxweyne ku xigeenka waxa uu leeyahay inagoo wada hadalladii ku jirna ayaa waxyaabo aanan ku heshiinin Trump bartiisa baraha bulshada uu ku soo qoraya taasina wada hadallada socda ayay carqaladaynaysaa marka waxay noqonaysaa in hal ilna wada hadalkii lagu fiiriyo il kalena barihii bulshada ee madaxweyne Trump lagu la socdo marka arrintaasi darteed ayaa la leeyahay miyuu shalay u raacin waayay labadan xubnood oo Trump uu diray warar kale waxay leeyihiin maadaama afayeenka baarlamaanka ee Iran Mohammad Baqir Qalibaf uusan la socon qof mansabkiisa ah oo isaga la siman ma uusan jirin si madaxweyne ku xigeenka oo loogu diro Islamabad marka arrimahaas oo idil ayaa soo baxaya laakiin Trump aqalka cad waxa uu sheegay labadaas xubnood inay direen wada hadallana Iran ay la yeelanayaan laakiin Iran markii horeba oo waftigan uu soo baxay waxay sheegeen inaysan jirin wax qorshe ah oo la xiriira in Iran iyo Mareykanku Iraniyiinta iyo Ameerikaanku ay kulmayaan sida afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda uu xaqiijiyay Iran waxa uu sheegay afayeenkan oo la yiraahdo Ismaaciil Bachai oo bartiisa X ku xaqiijiyay saacadihii hore ee maanta oo Sabti ah in waftiga wasiirka arrimaha dibadda Iran hogaaminayo in Abbas Araghchi uu u yimid Islamabad in wada hadal uu la yeesho mas'uuliyiinta wadanka Pakistan sida darteed waxa uu yiri waxaan Islamabad u imaanay waxa ay tahay oo booqashada wasiirka arrimaha dibadda inaan kulan la yeelano wafti sare oo dawladda Pakistan ka tirsan isla markaana dhaxdhaxaadinta hadda naga dhaxwada ay yiraahdeen inaga iyo Mareykanka sidaas darteed waxa aan doonaynaa in la soo gabagabeeyo dagaalkan iyo waliba gardaradan Mareykanku uu ku soo rogay iyo nabad la'aanta ka jirta gobolka sidaas darteed waxa uu yiri wax wada hadallah oo qorsheysan inay dhax maraan waftiga Iran iyo sidoo kale Mareykanka gabi ahaanba ma jiraan sidaas ayaa afayeenku yiri waxa uu sidoo kalena xaqiijiyay in waftigan booqashadoodu ay tahay booqasho rasmi ah oo wadanka
Pakistan ay ku tageen mas'uuliyiintoodana ay la kulmayaan haddaba madaxweyne Trump marka muxuu saaka soo qoray waxa uu yiri waxaan hadda kansalay safarkii wakiiladeeda ay ku tagi lahaayeen magaalada Islamabad ee wadanka Pakistan isla markaana Iiraaniyiinta ay kula kulmi lahaayeen waqti fara badan ayaa naga qasaara ayuu yiri oo safarka sidoo waftiga Mareykanku waa ay safreen iyaga oo aan gaarin Islamabad ayaa la yiri diyaaradeedu soo kala wareega maxaa yeelay yaa idin balamiya ka dhacdo horta yaa idin yeeray ayaa ka dhacday maxaa yeelay Iiraaniyiintu waxay leeyihiin anagu maba u yeerinba ujeedada aan u tagnay Islamabadna inaan Mareykanka la kulanno ma aysan ahayn marka halkaas Mareykanku waji gabax ayuu kala kulmay Trump marka madaxa ciida ayuu ka cishanaya wuxuu leeyahay waqti fara badan ayaa naga lumay isla markaana waxa uu sheegay iyo waliba shaqo fara badan laakiin waxa uu yiri dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhex jiraa iyo isfaham waa in hoggaanka wadanka Iiraan marka Iiraaniyiinta ayuu doonayaa mar kale inuu isku diro wuxuu leeyahay iyaga ayaaba iskhilaafsanba oo isfaham waa farada iyo khilaaf ayaa ka dhex jira laakiin sidoo wax u sheegaya maahano Iiraaniyiintu waa ay israacsan yihiin waa kii yiri kuwa mayal adag iyo kuwa dhaxdhaxaad ay isugu jiraan kuwa dhaxdhaxaadku nabad ayay doonayaan kuwa mayalka adagna dagaal ayay doonayaan waa kii maalmo ka hor soo qoray marka waxa uu yiri mayaq hadan qofna ma garan kara ayuu leeyahay qofka mas'uulka ka ah wadankaas xitaa iyaga nafsad ahaantooda ma ogo qofka wadankaasi hogaaminayo marka wax kasta hadda inaga gacanteena ayay ku jiraan iyagana waxba gacantooda kuma jiraan laakiin hadda sida muuqato wax kasta gacanta Iiraan ayay ku jiraan dhinaca Mareykanka waxba kuma jiraan Trump isaga ayaa wafti diray isaga ayaa soo celiyay isaga ayaa yiri xabad joojintii ayaan kordhiyay waqti aan la cayimin Iiraaniyiintu ilaa hadda arrimahaas maba aysan ka hadlaan anaga waxay leeyihiin booqashadeenu aan Pakistan ku tagnay mid aan mas'uuliyiinta kula kulmayno Pakistan ayay ahayd marka sida muuqata waxa uu leeyahay marka ay rabaan inay nala hadlaan justi hana soo wacan oo kaliya telefoonka hanaga soo wacan marka Trump isaga ayaa la doonaya marka hadda inuu telefoonka ka waco markuu asagu diyaar yahay maxaa yeelay hadda waftiyo shalay diray waftiga hawada iyagu ku jira ayaa dib loo soo celiyay marka sida muuqata marka hadda Trump waxa uu sheeganayaa in wax kasta isaga gacantiisa ku jiraan laakiin wax kasto gacantiisa kuma jiraan but we're not going to be traveling 15-16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. Too much travel. When they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said, Tuesday, that's a long time from now. But when you get right down to it, it's a lot of traveling. No, we don't want to do that. Well, we would. They're all very competent, all three. Those are three good. But they weren't meeting with the leader of the country. They were meeting with other people. And I said, we're just not going to do it. Too much traveling, takes too long, too expensive. I'm a very cost-conscious person. I'll deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out two levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it. When they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. marka hadda safiirkan dawladda Iiraan u fadhiya magaalada Geneva oo xafiiska qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin wax wada hadallo ah oo Mareykanka ay la yeelanayaan ilaa iyo go'doominta uu ka qaado wadanka Iiraan Mareykanka hadda waxa la leeyahay go'doomintan uu ku hayo Iiraan maalin kasta Iiraan 450 milyan lacag ka badan ayay qasaareysaa marka wareysi uu BBC da Radio 4 ayaa ninkan oo la yiraahdo Ali Bahreini waxa uu sheegay in arrintan ay tahay xadgudub weyn go'doomintan Mareykanku uu ku hayo isla markaana xabad joojinta ay xadgudub ku tahay isla markaana ma sii socon karo xaaladahan wada hadal kuma sii socon karo sida darteed waxa aan doonaynaa ayuu yiri in Mareykanku go'doomintan uu soo gabagabeeyo shuruudda kaliya oo Iiraan in Mareykanka mar kale ay hor fariistaan ay ku xirayaan ayaa waxay tahay in Mareykanku uu go'doomintan qaado laakiin sida muuqata Mareykanku hadda go'doomintaasi inuu qaado ma doonayo markii ugu horeysay Mareykanka ayaa 3 markab oo kuwa diyaaradaha dagaalka xambaara waxa ay ku sugan yihiin bariga dhexe gaar ahaan waxa ay ku sugan yihiin xeebaha Oman marka Iiraan sidaas ay leedahay waxa sidoo kale jirta in hadda
ay ciidamada Iiraan ay u digayaan sidoo kalena dowladda Mareykanka waxa ay leeyihiin go'doomintan Mareykanku uu ku hayo Iiraan waxa ay ku tilmaameen arrimo burcadbadeednimo isla markaana jawaab kulul ayay nagala kulmayaan ninkan kataa'ibul anbiya la yiraahdo xarunta dhexe ee ciidamada Iiraan oo qoraalkan soo saaray ayaa waxa uu leeyahay haddii gardaradan ay sii socoto iyo go'doomintan ciidamada baddu ay ku hayaan Iiraan waxa uu ku tilmaamay arrintan in tahay mid burcadbadeednimo ah isla markaana jawaab celin adag ay kala kulmi doonaan ciidamada waddanka Iiraan waxana uu sheegay waxa aad ogaataan ayuu yiri in ciidamadeenu markastaba ay diyaarsan yihiin diyaarna ay u yihiin madaxbanaanida waddankeena mideena dhuleed iyo danaheena qarankaba in aan difaacno sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay awoodda aan leenahana waa uu arkay cadowgan dagaalka nagula jiro oo horay ayuu u arkay ayuu leeyahay sidoo kalena waxa uu sheegay in markastaba aan u diyaarsanahay yiri wayna naga go'an tahay inaan la socono dhaqdhaqaaqa iyo dabeecadaha cadowga uu gobolka ka wado isla markaana sidoo kalena waan maamuli doonaa oo waan xakameyn doonaa marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz sidaasi ayaa sidoo kale ciidamada Iiraanna ay ku hanjabayaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo